baryadu xilliyaa jira iyaduna ay ku sii fiicanta in la baryo xilliyo culimadu ay yidhaahdaan ducadu waa mustajaab oo lala eegto ilaahayna qur-aanka inoogu tilmaamay inaynu waqtiyadaa la baadi doonano maxaa ka mid ah thuluthu lakhiir min alleyl habeenkii saddex dalool oo daloolka dambe waa waqtiga dadku hurdada u jecel yihiin dadka saalixiintiina waa waqtigay ilaahay inay is hortaagaan ugu jecel yihiin habeenkii thuluthka u dambeeya والمستغفرين بالأسحار با إلهي تلمام مركو كوا ونكسنات تلمامي والمستغفرين كوا إلهي دمداف كويديستا بالأسحار وقت سحر وقت سحورتا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كوا ونكسن إلهي جنة إني قليات تلمامي وحلو تلمامي هبينكي إني كعشرين وقت السحور كان إن إلهي بري جرين وحلا إلى هذا habeenkii ulukaa dambe intay ilaahay u tukadaan oo cibaadaystaan waktiga dambe ee salaadu soo dhowdahayna baryay u dhaqaaqaan ilaahay baryadiisa inay badiyaan xadiidka culamadu ay yidhaahdaan waaba mutawaatirna waa ka uu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala ama nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo yanzilu rabbuna kulla laylatin ilaa samaa'i dunya rabbi baa u soo dega samaa'u dunya habeen kasta degitaan isaga u qalma marka ay thuluthu leyl harsan tahay dabeetana waxaa ilaahay yidhaahdaa habeen kasta waqtigaa dambe man yadcunii fa astajiibu lah war kuma ay baryey aan wax ka aqbalaa baa ilaahay leeyahay adna waad iska hurdaa ilaahayna waa kuu yeedhaya wuxuu leeyahay war yaa ay baryo aan wax ka aqbalaa man yas'alunii fa ucطiyah war kumaa wax i weydiisanaya aan wax siiyaa baa ilaahay leeyahay kumaa wax i weydiisanaya oo aan wax siiyaa man yastakfirunii fa akfiru lah waryaa dembi dhaaf i weydiisanayaan dembigiisa dhaafaa baa rabbi leeyahay subxaanahu watacaala awqaadda faadilka ah ee baryada ku habboon tahay waxaa ka mid a maalinta jimcaha siiba saacad ka mid a nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fiihi saacatun laa yuwaafiqahaa cabdun muslim wa huwa qaa'imun yusalli yas'alu allaha tacaala shay-an ilaa acطaahu iyaah wa ashaara biyadihi yuqalliluha jimcada waxa ku jirta buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saacad qof muslimi aan alla waafajin oo aanu ku beegmin isagoo taagan oo ilaahay baryaya oo wax weydiisanaya alle ilaa iyo ilaahay waa ka aqbalaa markaasaanu nebigu gacanta ku tilmaamay ama raawigu gacanta ku tilmaamay isagoo yaraynayo tilmaamaya waqtigu waqti yar inuu yahay waqti badan aanu ahayn waqtiga kan maalinta xaguu kaga beegan yahay aqwaal tiro badan baa culamada ka soo aroortay waa waqtiga waa subaxa dabadii waa kan aqwaal tiro badan labaa culamada ka soo aroortay laba qowl baa se u daliil roob bay yidhahdaan oo axaadiid aada moodaa inay ku soo aroortay midi waa xadiidka bukhaariya sheegaya hiya bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa imaamku markuu mimbarka fadhiisto ilaa iyo inta salaada la dhammaynayo intaa dhexdeedaa la aqbalaa qowlka kalena waxa uu sheegayaa xadiidkii cabdillaahi bnu salaam inuu nebiga u yimi uu u tilmaamay inuu kutubtooda ku hayaan waqti qofka muslimka ee taagan ducada laga aqbalo saacad inay jirto uu nebigu yidhi ow bacdu saacaba saacad ama saacadba wax ka yar markaasuu yidhi haa saacadba wax ka yar waa run baad sheegtay ilaahay rasuulkiisiiyo markaasuu nebigu wuxuu u tilmaamay hiya aakhiru saacatin min saacaati nahaar iyana waa saacadda ugu dambaysa ee maalintaasi ugu dambaysa maalinta jimcaha saacadda ugu dambaysa jimcaha markay cadceedu dhicitaanka kusii dhowdahay markaasaan idhi buu yidhi oo waqtigaasi waqti salaadeed maahay sababta la yidhi qof salaad tukanayu xadiidku ahay markaasuu wuxuu yidhi bala ina alcabda almu'mina idaa sallaa uma jalasa laa yajlisuhu ila asalaa fahuwa fii salaa qofka mu'minka hadduu salaad tukado dabeetana uu fadhiisto ilaa salaada kale u soo gelayso oo uu ilaahay dee cibaadaysanaya intaasoo aanu wax kala samaynaynin salaadna uu sugayo intaasoo dhan waxaa loo qoraa sidii nin salaad ku jira yani casar markaad tukatay haddaad iska fadhiisato dabeetana ilaahay baryadiisa aad iska sii wadato iyo ducooyinkaaga iyo qur-aan akhriskaaga ilaa iyo waqtiga aad ka gaadhayso waxaa tahay un nin salaad ku jira markaa kanna xadiidkii way waafaqaysaa wahuwa qaa'imun yusalli buu nebigu ku tilmaamaya idan labada qowl culammadu waa tilmaamaan waa waqtiyada faadilka ee
ducada la aqbalo waxaa ka mid a bay culammadu yidhaahdaan wakhtiyada ducada la aqbalo bishan aynu ku jirno ramadaan siiba tobanka dambe siiba habeenka laylatulqadriga la yidhaahdo habeenka caisha lahayd haddii ilaahay waafajiyo maxaan idhaahdaa waxaad tidhahdaa allahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canhu awqaadda faadilka ah waxaa ka mid ah maalinta carafa ee dadku carafo taagan yihin nebigu wuxuu yidhi afdalu ducaa'i ducaau yowmu carafa barya ilaahay la baryo waxaa u fadli badan baryada maalinta carafo wa afdalu maa qultuhu ana waannabiyiina min qabli aniga iyo ambiyadii iga horraysayba waxaanu ku hadallana waxa u fadli badan iyo kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir awqaadda la rajaynayo ducada in la aqbalo waxaa ka mid ah labada aadaan inta udhaxaysa markuu mu'adinku aadaanka dhammeeyo markuu aadimayo inaad wuxuu mu'adinku leeyahay ka daba tidhaahdo markuu dhammeeyana inaad kow nebiga ku sallidid u ducaysid in ilaahay wasiilada waafajiyo adna aad ducaysatid ducooyinka soo arooray waxaa ka mid ahaa ducooyin badan baa adigu wakhtigaa inaad adna ducaysatid nebigu waa wuxuu yidhi adducaau laa yuraddu bayna alaadaani waaliqaama fadcu ducada lama radiyo lama soo celiyo ducada u dhaxaysa aadaanka iyo iqaamada ee ilaahay barya xadiidka axmed iyo abu daawud iyo tirmidi iyo kayrkoodba waa wariyey sheekh albaanina saxiix buu ku tilmaamaya nebigu wuxuu kaloo yidhi calayhi الsalaatu wasalaam hintaani laa turaddaan laba lama celiya buu nebigu yidhi aw qallama turaddaan ama waa yartay inta la celiya adducaau cinda nidaa waa ka aynu soo sheegnay markaa ilaahay dadka loogu yeedhayo salaada waa markaa mu'adinku dhammeeyo intaan la aqiimin inay ducaysato iyo wa cinda alba'si xiina yalxamu bacduhum bacda iyo marka jihaadka islaamigaa lagu jira ee ciidamadu isdhex galaan markaasina inaad ducaysato ducada waa la aqbalaa wakhtiyada ducadu ay fiican tahay waxaa ka mid ah salaada faralkaa markaad tukato kadib salaada faralkaa markaad tukato waxaa nebiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam ayu ducaa'i asmacu duco teebaa loo aqbali og yahay wakhtiyada yani ducada la aqbali ogyahay waa kee jawfu leyl ilaakhir buu nebigu yidhi habeenka gudihiisa xaggiisa dambe habeenka dambe gudihiisa yani ulusuleylkaynu soo sheegaynay weeyaan ducada waa la aqbalaa iyo waduburu salawaati almaktuuba waduburu salawaat almaktuubaat iyo salaadaha faralka ah gadaashood salaadaha faralka ah gadaashood marka faradka aad tukatee dhammaysatid kadib inaad ilaahay barido faralka gadaashooda in la baryaa waa waktigee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam mucaad ibnu jabal saxaabigii la odhan jiray wuxuu ku yidhi mucaadow ha ka tegin fii duburi kulli salaa salaad kasta dabadeeda inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waa duco ilaahayow iigu gargaar xuskaaga iyo mahadnaqaaga iyo cibaadadaada wanaajinteeda ilaahu iigu gargaar buu ilaahay weydiisa buu leeyahay saddexdaas shay ilaahay weydiiso salaad kasta dabadeeda muxadisiintu markay axaadiistan fasirayaan iyo ducooyinka tirada badan la soo arooray qaar ka midaba waxa qaarkood waxay ku fasiraan duburu salaadku waxa weeyaan intaan la salaamo naqsan oo markaad ataxiyaadka dhammaysato ee ducooyinkii nebiga ka soo arooray dhammaysatay iyo wixii aad awoodo halkaa waxaa la yidhi wixii aad ilaahay weydiisan karta weydiiso ataxiyaadka intaanaad asalaamu calaykum oo dhan weydiiso muxadisiinta qaybo ka midina waxay leeyihiin taasina waa jirtaa tan salaada dabadeeduna waa jirtaa laakiin masaladan laga hadla inta badan ma haddaynu ka hadlaynaa imaamku miyuu ducaynaya dadkuna aamiin odhanaya taa kama hadlayno taasi ma soo aroorin se adigu inaad iska ducaysata wax diidanaya ma jiro axaadiistanina waa tilmaamaysaa aduu dadba ha isku xidhine markaad salaadaada dhammaysato adaa og meesha ku bugta iyo waxaad ilaahay weydiisanayso baahidaada adaa yaqaana baahi waa wada leenoo waa dee taa weynaa in ilaahay naarna inaga badbaadiyo
jannana ina geeyo adduunkana kadeedkiisa inaga ilaaliyo baahidaa waa wada leenahay haddana qof waliba baahi gaaruu sii leeyahay mid baa ilma raadinaya mid baa faqri ka cabanaya mid baa xanuun ka cabanaya qof waliba baahi gaara buu leeyahay adigu rabbigaa si dhaba u bari oo baahidaada adaa garanaya xoog u bari subxaana wa tacaala